waxaan ku wada duco ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu dembi dhaafayo, kuguna naxariisanayo, arsaaq waasicana kugu siinayo, haddii aad xanuunsan tahay in ilaahay kugu caafinayo. intaas waad u baahan tahay, dadka dhan waa u wada baahan yihiin. waxaan kaa codsanayaa inaad u sheergarayso walaalaha muslimiinta ay kugu jiro insha Allahu tacaala. rasuulkana calayhi salaatu wassalaam waxaa u yimaaday nin, wuxuu ku yidhaahday ilaahay rasuulkiisiiyow waxaad i bartaa duco aan ilaahay ku baryo subxaanahu wa tacaala. nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhaahday waxaad dhahdaa allaahumma gfir lii warxamnii wacaafinii warsuqnii, oo ay macnaheedu tahay ilaahayow ii dembi dhaaf, ilaahow ii naxariis, ilaahow ii caafi, ilaahow arsaaqda ii waasici. marka rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhaahday adkaartaas akhriso oo ku ducayso ducadan waxay kuu kulminaysaa adduunkaada iyo aakhiradaada. marka walaalayaal insha Allahu tacaala aan ilaahay ku barino ducooyinka. ilaahay asigaana yidhi adcuunii astajib lakum. qof walba xaajuu leeyahay, xaajidaad iyo muraadkaadana cid kale kuuma oofin karta ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mooyee.